maxad ka faafinta diinta islaamka ee fadhigiisu yahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa maanta muxaadaro diini ah u qabtay ardayda wax ka barta jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera waxaana munaasabadaasi lagu qabtay hoolka jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera sidoo kale waxaa munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo qaar ka mid ah isuduwayaasha hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil ugu horeyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha maxadka faafinta diinta islaamka Sheekh Maxamed Cabdi Yuusuf oo isagu ka waramay kulan diimeedkan iyo ahmiyadda uu leeyahay dhalinyarada Berberi waxay ka mid ahayd saddexdii magaalo ee laga furay xisbigii la oran jiray wuxuu huwanaa diinta cadiyatu raxmaan baa la oran jiray hoostana siyaasad buu ka ahaa waa markii la dhisay muxuu ahaa khayriyooyinkan saddex ayaa la dhisay midna ay tahay Berbera Burco iyo Hargeysa cadiyatu raxmaan baa la oran jiray 1926 ayaa la dhisay markii dambe siyaasaddu isu rogtay SNS bay noqotay SNL bay noqotay dabeedna waa ilaa dawladnimada ay lagu gaadhay 1926 ayaa halkan la bilaabay waxa iga dambeeya oo wacdiga diiniga ah idin wadi doona Xaaji Saleeman Sheekh Saleeman intaas uu baan idin dareensiinayay in Berberi ay qadiimi ahayd oo cid walba ku noolay oo ay magaalo fac weyn ahayd idinkuna arday yahay ninba wax loo dhigi jiro markaas mid nageeri inta arday ilaaqda wadana farxadaan hay'adina isbuulkan in leeyahay aaminay an area yahay soo ma aragtaan buu noo hajay Allah idinku anfaco si wanaagsan wax noogu barta sidoo kale waxaa khudbadii diiniga ee munaasabadaasi ka soo jeediyay Sheekh Saleeman Saciid Ali ahna isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil oo isagoo halkaasi ka soo jeediyay muxaadaro dheer oo dhinacyo badan taabanaysa runtii kelmad kooban baan oranayaa haatan hadal badan baan oranayaa madaxdeena nala wada joogaan kelmadeena kooban waxay ku saabsan tahay saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xumi dhinaceedu ku jeeday Ilaahay tabaaraka wa ta'ala nabigeena Muhammad alayhi salatu wa salaam ayuu inoo soo diray waxa uu muallimu hadhihi al-umma ummadan nabiga muallimu alayhi salatu wa salaam rasuulku wuxuu nagala taliyay qofka uu la saaxiibayo maadaama saameyn badan uu ku leeyahay xadiidka Abu Hurayra uu warinahay Imam Bukhari iyo Muslim ay soo Abu Daawud iyo Tirmidhi ay soo saarayaan ayaa nabigu wuxuu alayhi salatu wa salaam al-mar'u ala diini khaliilihi qofku wuxuu haystaa diinta saaxiibkiisa فلينظر أحدكم من يخال قفوا هيسكاه بعيد الله صحيح عيد الله صحيح ويسا إسكاه صاحبك قفك وحوجيدا منع ووجيدا هذه صاحب ولا سنة أدراعنا منع ولا ووجيدا ذات صاحب حر عدنا منع حمار فتايب ووجيدا ugu dambeyntii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Ali Maxamed Cilmi iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi oo dhamaantood ardaydii ka soo qayb gashay kulankani ku waaniyay inay ka faa'iideystaan kulankani isla markaana ay u faa'iideeyaan bulshada inteeda kale Khalid Xasan Nuur shabakada caalamiga ee Aynaba News magaalada Berbera